Magacaygu waa Cali. Waxaan la soo koray hooyaday, walaalkay iyo 4 gabdhood oo walaalahay ah gudaha Soomaaliya. Waxaan ku jiraa sanadka ugu dambeeya ee dugsiga sare. Waxaan rajaynayaa inaan aado jaamacadda. Nolosha gudaha magaalada way adkaatay, dagaalka iyo qaraxyada. Anigu ma aanan dareemin ammaan, marnaba kama aanan arki karin mustaqbalkayga halkaa. Saaxiibkay Xasan waxa uu dareemay si la mid ah. Wuxuu ogaa qof naga caawin kara inaan tagno Yurub. Xitaa uma aanan baahnayn lacag haatan. Waxaan dib u bixi kari lahayn mar dambe. Marka aan bilaabnay inaan safarno, waxaan dareemay welwel. Waxaan mar hore ka maqlay hooyaday sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan safarka. Kadib markii baska la kaxeeyey, waxaan dhammaanteen isku soo xiriirinay dabada dambe ee gaariga. Dadka qaarkood waxay awoodi waayeen inay is celiyaan oo waxay ka dhaceen gadaal, laakiin darawalka uma uusan joojin iyaga. Gaariga wuxuu ku jabay bartamaha lama-degaanka, waxaana lanagu amray inaannu soconno inta kale waddada hartay. Waxaannu soconay muddo 3 maalmood iyo 3 habeen ah oo biyo la'aan ah. Dadka qaar ayaa laga soo tegay, waayo waxay ahaayeen kuwo aad u gaabinaya. Markii aan soo gaarnay dalka xiga, waxaana lagu wareejiyey makafe. Wuxuu nagu amray inaan wacno qoysaskeena oo aan u sheegno inay soo diraan lacag badan, isagoo noogu hanjabay inuu na dilay haddii aannu samaynayn. Waxaan wacay hooyaday. Waxay aad ugu faraxday inay iga wareyso iyo inay ogaato inaan noolahay. Ma aysan garanayn sida suurtagalka ah ay u soo keeni karto lacagta aadka u badan, laakiin waxay sheegtay inay isku dayeyso oo aan anigana sugo. Waan sugay. Maalin kasta waxaa si xun noola dhaqmay afduubayaasheeda oo na siiyey cunto aad u yar. Bilooyin kadib oo la nahayay, hooyaday iyo qoyska Xasan ayaa ugu dambeyntii soo diray lacagtii. Waxay iibiyeen guryahooda iyo dhulkooda si ay u keenaan. Maalinta xigta waxaan ku safnay doon, laakiin markii la gaaro waqtiga aan korayno doonta, aniga iyo Xasan waana la kala soocay. Xasan waxaa lagu qasbay inuu fadhiisto meesha hoose, anigana sagxadda sare. Doonteeda waxay dhex joogtay badda muddo 9 maalmood ah. Safarka badda waxa uu ahaa adag. Doontana qaabkeedu ma wanaagsanayn. Rajadayda kaliya oo aan badda kaga bixi karno waxay ahayd in la badbaadiyo. Qof kasta wuxuu ka niyad jabay in lana badbaadinayo. Markii si lama filaan ah qof arkay markab, waana la badbaadiyey. Waxaan doonayay inaan la wadaago xilligan Xasan, laakiin markii dadka loo kaxaynayay markabka weyn, waxaa la helay qof walba oo fadhiya meesha hoose oo dhintay. Si aad ah ayaa loo buuxiyey, waa ayna caburmeen. Waan qaraacmay. Xasan wuu dhintay. Waxaan waayay saaxiibkaygii ugu wanaagsanaa. Waxaana wajahi doonaa Yurub keliday. Hadda waxaan joogaa Yurub, laakiin aad ayaan u naxsanahay. Qofna kama aqaan halkan. Waxaan u malaynayay in la isiin doono meel aan joogayo, lacag iyo waxbarasho lacag la'aan ah, laakiin ma la isiin. Mid ka mid ah waxyaabahan beddelkeeda waa inaan aniga ismaareeyaa.